bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan qodobada wararka keenana duhurnimadana waxaa ugu waaweyn al-shabaab oo guddoomiyihii deegaanka goobguduud iyo taliyihii saldhigiisa ku dilay qaraxyo ay ku xidheen meydadka askar ay ku dileen weerar ay saaka ku qaadeen deegaankaasi dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in weerarkii saakay ka dhacay deegaanka goobguduud lagu dilay dagaalamayaal badan oo al-shabaab ah meydadka shabaabkii weeraray hoteelka ilid oo weli yaala gudaha hoteelka iyo milkiilaha hoteelkaasi xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka hadlay sida uu dhacay weerarkaasi shirka dhuusamareeb 3 oo gelinka dambe ee maanta iyo caawa la filaya inuu ka furmo magaaladaasi iyadoo weli ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland howlgalka maraykanka ee soomaaliya oo la ogaaday in ay qayb weyn ka yihiin shirkado qandaraaslayaal ah oo duqaymo ka fuliyo goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab taiwan oo xafiis diblomaasiyadeed maanta ka furatay magaalada hargeysa ra-iisul wasaaraha jabaan oo la dhigay cisbitaal ku yaalla gudaha dalkaasi iyo shacabka gobolka kashmiir oo muddo sannad ah kadib helaya adeegga internetka mar kale duhur wanaagsan waa isniin 17 bisha 8 ee agoosto sanadka 2020 cali ibraahim cabdulaahi ayaa warkeena duhur soo saaray maxamed shooriye nuur iyo anigoo ah farxiyo xuseen ayaana soo jeedinaya markana kusoo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan al-shabaab ayaa guddoomiyihii deegaanka goobgaduud iyo taliyihiisii saldhigaasi ku dilay qaraxyo ay ku xidheen meedadka askar ay ku dileen weerar ay saake ku qaadeen deegaanka goobgaduud dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii saake ka dhacay deegaanka goobgaduud lagu dilay dagaalamayaal badan oo al-shabaab ah cali ibraahim cabdulaahi ayaa faahfaahinay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa maanta waxa ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka goobguduud buure oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa al-shabaab waxay la beegsadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goobguduud buurey waxaana halkaasi kadib ka dhacay dagaal toos oo u dhexeeyey labada dhinac kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in weerarka ku bilowday qaraxa kadib ay u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan saldhigga ciidamada xoogga ay ku leeyihiin deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay islamarkaana halkaas askar badan ay ku dilaan sida ay keen u sheegeen dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyey ay keen ka helayso deegaanka goobguduud buurey ayaa sheegaya in taliyihii saldhigga booliiska deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay xasan isxaaq xasan baka guddoomiyihii deegaankaasi isxaaq cali iyo ilaaladoodu ay ku dhinteen qarax miino oo al-shabaab ay ugu dhex qariyeen meydadka askartii lagu dilay qaraxii ugu horreeyey iyo weerarkii tooska ahaa ee ka dhacay deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay taliska ciidamada xoogga dalka oo ka hadlay weerarkii ka dhacay deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay ayaa waxa ay sheegeen inay ciidamada militariga soomaaliya iska caabiyeen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka goobguduud buurey taliska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalkii ka dhacay deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay lagu dilay ilaa iyo 10 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab dhanka kale warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan kooxdooda ay dagaal kula wareegeen deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay xaaladda deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay ayaa haatan ah mid degan balse waxaa dhaqdhaqaaqi iska soo horjeeda dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya ay ka wadaan duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay meydadka shabaabkii weeraray hoteelka ilid ayaa weli yaala gudaha hoteelkaas iyadoo milkiilaha hoteelkaas xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur uu ka hadlay sida u dhacay weerarkaasi farxaan maxamed xuseen ayaa dhammaystiray warkan iyadoo galabnimadii shalay weerar ku bilowday qaraxyo mid toos ah ay ku qaadeen koox ka tirsanaa al-shabaab hoteelka ilid ee ku yaala xeebta liido ee degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir islamarkaana weerarkaasi ay ku dhinteen dad fara badan oo iskugu jira mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacaba ayaa ciidamada amniga waxaa xali saqdi dhexe u suurto gashay in weerarkaasi ay soo afjaraan sidoo kalena ay dilaan ilaa 4 ka mid ah kooxihii hoteelka ka dagaalamayay hoteelka ilid oo ah hoteel heer sare loo dhisay ayaa waxaa hadda ka muuqda burbur xooggan oo guud ahaanba soo gaaray qaybaha kala duwan ee hoteelka waxaana barxadda hoteelka yaala meydadka 4 ka mid ah kooxdii weerarka ku soo qaaday oo ay ciidamada ammaanka toogteen
milkiilaha hoteelka ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee hoteelka ayaa waxa uu sheegay in marnababa aysan ii jibin doonin kooxaha argixisada isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in hal meel ay ugu soo wada jeestaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ilaahay u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacna ilaahay bogsiyo dabcan dee sida idin muuqataba waa nimankii dee nabadiidka ahay oo shaqadooda ahayd mar walba inay dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ka shaqeeyaan ayaa shalay dhibtan geystay waa niman dee uun caadaystay inay shacabka soomaaliyeed niyad jebiyaan inay mar walba uun dalka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed gumaystaan laakiin anigu waxaan qabaa inaan afar canugo cagacaddo ah oo qori ah kee47 wadad inaynan sax ahayn dalka soomaaliya intaan ka badan inuu afduubnaado ummadda soomaaliyeed maalin walba ay sidaan oo kale u gumaadaan waxaan rajaynaa shacabka soomaaliyeed inay iska xoray doonaan haddii allah wadala ka raali noqdo aniga dabcan wax hadda niyad jab gaar ah ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad uga xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawac halkan ka dhacay laakiin igama niyad jebinaysa yacni mana dhacdo kastoo aan kugu dhicina sideeda waxaa oo kugu dhacdo aan ku dhansiin waxaa la rabaa inaad adeeg iyo ka qaado ma aha inay niyad jebiyaan waana hawshii aan halkan ka haynana waa sii wadaynaa waa nimankii cadowga ahaa ee meesha soo weeraray dabcan waa uun carruur la qalday oo maskaxdooda la rogay nimankii waaweynaay ee soo qalda carruurtan oo meydkooda meeshaan taal guryahooda ay joogaan ilmahooda ay dhaqanayaan ilmihii ayagu dhaleen iskuullada iyo jaamacadda u jiraan marka waa iska ayaan daro laakiin waa uun ilmaheenii oo la qalday oo aragtidaas aadka u qalabsan laga soo dhaadhacsiiyey dhinaca kale isbitaalada magaalada muqdisho oo aan booqnay qaarkood ayaa waxaa yeela dhaawacyo fara badan oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkii ka dhacay hoteelka ilad ee magaalada muqdisho iyadoona dhaawacyada qaar xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata islamarkaana aan wax lagu qaban karin gudaha dalka shirka dhuusamareeb 3 ayaa gelinka dambe ee maanta iyo caawa la filayaa in uu ka furmo magaaladaasi iyadoo weli ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland libaan nuur xasan oo dhuusamareeb soo tibinta shirka u jooga ayaa warkan goordhowe noo soo diray in ka badan 48 saacadood waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ku sugan madaxweynaha soomaaliya inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kuwaasi oo kulamo gaargaar ah ay uga socdaan madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa iyagu weli imaan dhuusamareeb waxaana jirin saansaan muujinaysa inay imaanayaan si ay uga qayb galaan shirka dhuusamareeb 3 ee lagu wado inuu ka furmo halkan mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada galmudug ayaa keenay inuu xaqiijiyey in shirkani uu furmi doono saacadaha soo socda islamarkaana aan lala sugi doonin furitaankiisa madaxda haatan ka maqan dhuusamareebe balse waxay noo xaqiijiyeen in lagu qanci doono inay kusoo biiraan shirka madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland sidoo kale xubnahan ka tirsan madaxtooyada galmudug waxay noo sheegeen in xiriir dhanka taleefoonka ay la sameeyeen madaxweynaha puntland Siciid Cabdulaahi Dani islamarkaana uu dani ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 shuruud uga dhigay in beesha caalamku ay kasoo qayb gasho dalabka madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ee ah in shirka ay kasoo qayb gasho beesha caalamka waxaa ku gacan saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shirkani hogaaminaya waxaana xusid mudan in shirarkii kan ka horeeyay ee dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 aysan kasoo qayb galin beesha caalamka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo haatan dalka ka maqan ayaa ilaa hadda xog buuxda laga helin damaciisa ku aadan kasoo qaybgalka shirka wada tashiga ee dhuusamareeb 3 madaxweyne Axmed Madoobe maalmo ka hor waxa uu qalliin ku galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lamana oga inuu kasoo qayb gali doono shirkan mas-uuliyiinta ka tirsan galmudug oo aan wax ka weydiinana waa ay ka gaabsadeen shirka wada tashiga madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee dhuusamareeb 3 caqabada ugu weyn ee wajahayo waa in dalku uusan ra'iisul wasaare lahayn madaxda haatan ka maqan dhuusamareebna waxay ka qaybgalka shirkani shuruud uga dhigeen in madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare fuliyo wixii shirkani ka soo baxa howlgalka mareykanka ee Soomaaliya ayaa la ogaaday in ay qayb weyn ka yihiin shirkado qandaraaslayaal ah oo duqeymo ka fuliya goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya hay-adda mashruuca baahinta dembiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa oo magaceeda loo soo gaabiyo OCCRB oo fadhigeeda uu yahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo bandhigtay xog la xiriirta in koox qandaraasley ah ay ku lug leeyihiin howlgallada taliska Africom uu ku beegsanayo madaxda iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab warbixintan ayaa lagu qeexay inay jiraan shirkado diyaaradeed oo ka hor duqeymaha sahmiya deegaanada shabaab ay gacanta ku hayaan si xog dheeraad ah ay u soo helaan kadibna taliska
uu ka howlgalo macluumaadka shirkadahan qandaraasleyda ah uu ka helo oo keliya oo xog dheeraad ah iyagu aysan si gaar ahaaneed u raadsan. ilaa iyo iminka magacyada la helay ee ah shirkadaha ku diiwaan gashan magacyada qandaraaslayaasha waxaa ka mid ah Gulfstream, L3 Harris Technologies, Ivex iyo Eurospace iyo shirkado kale oo waaweyn oo dhammaantood ay leeyihiin muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka. qorayaasha hay-adda OCCRP ayaa dhinaca kale waxa ay xuseen oo ay xogtan ku xaqiijiyeen inay la xiriireen hoggaanka taliska dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika Africom, waxaana su'aalo la weydiiyey la shaaciyey inay uga jawaabeen inay jiraan qandaraaslayaasha la shaqeeya howlgalkooda, balse aysan jirin wararka sheegaya in iyaga xogtooda ay ku weeraraan meel kasta oo ay warbixin ka keenaan. inta badan weerarada duqeymaha ah ee ay ciidanka dowladda Mareykanka ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya waxaa hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay si joogto ah ugu eedeeyaan in dhibaato fara badan ay ka soo gaarto dad rayid ah. dhinaca kale warbaahinta dalka Kenya oo soo xiganaya warkan xasaasiga ayaa sheegaya in weerarkii xirada Mandabay ee waqooyiga dalka Kenya al-shabaab ku qaadeen horaantii bishii Janaayo ee sanadkan lagu dilay hal askari oo militariga Mareykanka ka tirsanaa iyo 2 qandaraaslayaal, waxaana ay muujinayaan oo warbaahinta Kenya ay hoosta ka xariiqayaan howlgallada Mareykanka ee Afrika gabi ahaantoodba inay aad uga dhow yihiin dad qandaraaslayaal ah oo si dhow uga faa'iida. dad badan oo darsa arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa sidoo kale qaba in duqeymaha al-shabaab lala beegsanayo aysan waxba soo kordhinin, loona baahan yahay xaltaa ka duwan oo howlgalka Africom ilaa iminka uusan ku howlneen. Taiwan ayaa maanta xafiis diblomaasiyadeed waxa ay ka furatay magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramaya waryaheena Ilyas Cabdi Cali. dowladda Taiwan ee aan helin weli aqoonsi caalami ah isla markaana kursi ku yeelan qaramada midoobay ayaa maanta xafiiskeedii diblomaasiyadeed ee u horeeyay ka furatay magaalada Hargeysa. xafiiskan ayaa waxaa loo furay safiir isla markaana loo soo magacaabay bishii Abriil ee sanadkan kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Faratoon uu dalkaasi safar ku tagay. sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa safiir ka furatay dalka Taiwan kaasi oo ay u magacowday safiir rasmi ah. safaaradda maanta magaalada Hargeysa laga furay ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta dawladda iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin xiriirka ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Taiwan oo adduunka labadoodiba ka raadinaya aqoonsi caalami ah. dalka China ayaa aad uga xumaaday xiriirka ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Taiwan kaasi oo dalka Taiwan uu ka go'ay China isla markaana safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka China iyo sidoo kale wasiirka u qaabilsan arrimaha Afrika dalkaasi China oo madaxweynaha Soomaaliland la kulmayna waxay sheegeen inay ka xun yihiin xiriirka China isla markaana uu ka noqdo xiriirka madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay Taiwan oo sheegtay inay ka go'day China, balse safaaradda maanta laga furay Soomaaliland ee dalkaasi Taiwan ayaa ka dhigaysa kulankii ay wada yeesheen mas'uuliyiinta ka socda China iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland min aan waxba ka suurtagelin maadaama safaaradda ay kala hadleen hadda ay ka shaqeynayso magaalada Hargeysa.